السلام عليكم صاحبيال muuqaalkan saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idin kula wadaago aaladda ChatGPT oo ah aaladda ugu hadalhaynta badan internetka labadii bilood ee u dambeeyay. Aaladdan saaxiibayaal markii u horeysay ee la shaaciyay waxa ay heshay 5 cisho u horeysay 100 milyan oo isticmaale in ka badan. Saaxiibayaal aaladdan waxa la shaaciyay markii u horeysay bishii November ee sanadkii dhamaaday. waxaana ay hadda internetka ku jirtaa 2 bilood. labada bilood bil kasta aaladani waxa ay heshay 100 milyan oo isticmaale oo active ah. ما هي استعمالياش آلة بس هو active users كما استعمالياش active كا إلا بدي بلودي ودن بي أي آلة الإنترنت كوتشرتي آلة نساحب يال ريكوردة أي قاعدي متشرتو إنترنت كتاريخ دي سودن آلة قاعدي هذا يتهوى ويب سايت إنترنت كأوردن سيدا كوا نستعمل له أي قوة وين السوشيال ميديا سيدا يوتيوب فيسبوك إنستغرام تيك توك يكوا كلا لميتكا متشرتو ريكوردة دي آلة قاعدي آلة قاعدي aaladana waa aalada hadda lagu hadalhaynta badan yahay internetka. waxaan rabaa markaa saaxiibayaal muuqaalka in ay kula wadaago aaladan waxa ay tahay hadii laga adeegsan karo wadanka iyo hadii laga adeegsan karo wadanka sida looga adeegsanayo iyo aaladan sida loo adeegsanayo ama ba loo isticmaalayo. waxaan ku horeyn doonaa saaxiibayaal aaladda ChatGPT waxa ay tahay. aaladda ChatGPT saaxiibayaal waa aalad artificial intelligence ah gaar ahaan ah aaladaha chatbot-ka la yiraahdo. aaladaha chatbot-ka la yiraahdo waa aalado artificial intelligence ah kuwaas oo loogu talagalay inay ibni aadanka xiriir la sameyn karaan. aaladahan waxa loo diyaariyay inay ibni aadanka xiriir la sameyn karaan qaab qoraal ah. waxa loogu talagalay inay dadku su'aalo weydiiyaan ama dadku wax weydiiyaan kadibna weydiimaha ay weydiinayaan oo dhan ay aaladahan uga jawaabaan. balse aaladani waxay uga duwan tahay aaladaha kale ee chatbot-ka waxa weeye aaladaha kale ee chatbot-kaahi waxa loo diyaariyay dadku inay su'aalo gaar ah weydiiyaan su'aalahana ay uga jawaabto. balse aaladan ChatGPT waa aalad wax kasta oo aad weydiiso kaaga jawaabaysa. haddii ay tahay wax taariikha wax aqoona wax kasta oo aad weydiiso aaladan way kaaga jawaabaysaa. ereyga wax kasta ayaan isticmaalayno ma aha erey ku habboon inaynu isticmaalo balse waa ereyga haddana markaynu qeexayno aynu ku fahmi karno aynu aaladan isticmaali karno inay wax kasta kaaga jawaabayso. waanaynu arki doonaa bal waxay ka jawaabayso iyo sidoo kale sida ay uga jawaabayso iyo sida aynu weydiin doonaba. haddaba waxaanu imaanaynaa saaxiibayaal aaladan ChatGPT miyay ka shaqaynaysaa wadanka Soomaaliya. nasiib darro saaxiibayaal aaladan ChatGPT maaha aalad ka shaqaynaysa wadanka Soomaaliya ama wadanka waqtigan casharka ama muuqaalkan duubayo. aaladani wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale wadanka Masar iyo wadamo kale oo kooban oo Afrikaba ah kama shaqaynayso balse waxay ka shaqaynaysaa wadamada Djibouti, Kenya iyo badanka wadamada kale Afrika, Asia, Europe iyo America oo dhan. haddaba su'aashan isweydiin waxa weeye maadaama aynu ogaanay aaladani sida caadiga inaan Soomaaliya aanay ka shaqaynaynin ma laga isticmaali karaa Soomaaliya ayaynu isweydiinaynaa. aaladani sida caadiga maadaama aanay Soomaaliya ka shaqaynaynin waynu ka isticmaali karnaa wadanka Soomaaliya balse waxaynu u baahanay inaynu qaab marno. markaynu aaladan samaysanayno waxaynu u baahanay inaynu isticmaalno telephone number uu leeyahay qof jooga wadan ay ka shaqaynayso aaladan ChatGPT. sidoo kale waxaynu u baahanay inaynu isticmaalno software VPN ah. haddaba haddii aad rabto inaad adigu Soomaaliya joogto inaad aaladan isticmaasho waxaad u baahan tahay software VPN ah. aniguna muuqaalkan dhexdiisa waxaan isticmaalayaa software VPN ah oo horena aynu muuqaal uga sameynay oo ah software VPN ah free ah sidoo kale aad u wanaagsan marka la eego xawaaraha iyo sidoo kale connectionkiisaba. VPN-ka waxa la yiraahdaa Proton VPN. muuqaal baynu ka sameynay muuqaalkaasi waxa uu kaaga muuqanayaa labadan dhinac ee koonayaasha muuqaalka ama sidoo kale waxaan soo dhigi doonaa qaybta ifafaalada ama description-ka ee muuqaalka. waxaan soo kale soo gelin doonaa Telegram channel-keena haddii aad ka tirsan tahay. muuqaalkaas ayaad kaga boganaysaa sida software-ka VPN-ka aad u isticmaalayso. software-ka VPN-ka waxa la yiraahdaa Proton VPN. soo kale waxaad u baahan tahay VPN-ka markaad isticmaasho telephone number qof jooga wadan aaladda ChatGPT ay ka shaqaynayso. haddaba VPN-ka markaad isticmaalayso wadan allaala wadanka aad doonto ayaad ku xidhmi kartaa laakiin wadanka aad ku xidhmaysaa waxaa muhiim ah inuu noqdo wadan ay aaladda ChatGPT ka shaqaynayso. markaad wadan ku xidhanto wadamada adduunka kamid ah oo ChatGPT ka shaqaynayso telephone number-kaad isticmaalaysana wuxuu noqon karaa telephone wadanka uu doono ah laakiin wadan ay ChatGPT ka shaqaynayso ah. tusaale VPN-ka waxaad u isticmaali kartaa inaad wadamada Yurubta ama America ama wadan kale aad kaga xidhanto. telephone number-ka isticmaali kartaana wuxuu noqonayaa telephone number Kenya ah ama Djibouti ah. maaha khasab wadankaad VPN-ku ku xidhan yahay iyo number-kaad isticmaalayso wadanku yahay qaabka inay isku mid noqdaan. waan ku tusi doonaaba bal qaabka aad iska register garanayso ee aad u isticmaalayso. haddaba waxaan u imaanaa maadaama fanis inay wadanka ka shaqaynayso iyo sida loogu isticmaalayo aynu nimaadno sida loo isticmaalayo.
haddii aad markaas saaxiibayaal hadda imika halkaan eegtaan waxaan joogaa website-ka aaladda ChatGPT. website-kan linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa Telegram channel-keena. linkiga Telegram channel-keena sida caadadiga muuqaalka hoostiisu yaala. haddaba saaxiibayaal waxaan isticmaalayaa anigu VPN muuqaalka dhexdiisa. VPN-kan isticmaalaya waa kaan muuqaalkayda kula wadaagay waxa la yiraahdaa Proton VPN. saad aragtaan waxaan ku xidhanahay anigu hadda wadanka Netherlands, marka wadankaas ayaan isticmaalayaa. haddaba aaladan markaad saaxiibayaal doonayso inaad akoon ka samaysato, markaad boggan timaado waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku taalo sign up. haddii aad boggan kala timaado markaad linkiga furtana waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku taalo Try ChatGPT ee halka kaaga muuqanayso option-ka yar baad ku dhufan ee halka kaaga muuqanaya ku taalo Try ChatGPT. haddaba boggan ku keenaya option-kaasi waxaad dooranaysaa halka ay ku taalo sign up. sign up markaad doorato waxaad gelin doontaa xogtaada khaas ahaaneed ayaad gelinaysaa si aad u aado yani bogga sign up-ka. marka aad boggan timaado kadib markaad sign up dooratay halkan waxaad gelinaysaa email-ka aad rabto inaad akoonka ka samaysato. marka tusaale kale haddaan imika halkan emails ka soo qoro trymail@gmail.com aan geliyo si aan uga soo qaado emailka aan akoon ku samaysanayo inuu yahay, kadibna aan continue idhaahdo waxa la weydiinayaa passwordkii aan akoonka aan ku samaysanayay. marka waxa muhiim ah aaladan waxay la mid tahay markaad iska diiwaan gelinayso si aynu aaladaha kale isaga diiwaan gelino. markaad passwordka geliso fariin verification ah ayaa loo diray emailkaad gelisay, kadib fariintaas markaad gmailkaaga loo diray furto ee linkiga aad ku dhufato fariinta la socda waxa la weydiin doonaa numberkii aad ku isticmaalaysay aaladan. marka numberkaasna waa kuu sheegay inuu noqdo number wadan kale laga leeyahay oo ah wadan laga ogol yahay aaladda ChatGPT haddii aad wadankii joogto. marka dee ma doonayeen waqti ku lumiya iska diiwaan gelinta. boggan hoose ayaan dooranaya halkan ku taalo already have an account. akoon ayaan hore u leeyahay si aan akoonka aan rabo inaan aaladda ku galo markaan tusay aan u galo. markaan ku dhufto login boggan ay keenaya emailkaaga geli baa la odhanayaa. marka emailkii aan rabay inaan akoonkayga ama akoonkayga ku samaysnaa ayaan gelinayaa. emailkii waan geliyay continue baan odhanayaa si aan haddana passwordka u geliyo. marka passwordka haddana la weydiinayaa passwordkii ayaan gelinayaa. passwordka markaan geliyo continue ayaan odhanayaa si aan akoonka aalad aan ku leeyahay aan u galo. haddaba akoonkii aaladda markaad gasho waxaa jira aaladda ka hor intaanad adeegsan dhowr shay oo muhiim ah. marka koobaad aaladan haddii aad su-aalaha iyo jawaabaha isweydaarsanaysan markaad su-aalaha gelinayso jawaabaha way kaydinaysaa. marka aaladana maadaama weli la horumarinayo oo weli ay ku jirto tijaabo oo hadda uun la sameeyey jawaabaha aad aaladda isweydaarsanaysan waxaa jira dad eegaya oo ka mid ah dadka aaladan dhisaya. marka aaladani waxaa muhiim ah inaanad gelin xog xasaasiya marka aad aaladan xiriirka sameynaysaan. waana mid ay kuu sheegayaan dadka aaladan sameeyey oo aaladan iyaga ayaa ku odhanaya markaad xog wada hadalka sameynaysaan ha gelin xog xasaasiya oo aad leedahay xogta sida passwordada isticmaasho, credit card ama debit cardada isticmaasho iyo xogaha ku xasaasiga ee dhib kaaga iman karo ama lagu adeegsan karo. midda labaad jawaabaha aaladan ku siinaysaa maaha jawaabo 100% sax ah. meelaha qaar jawaabaha ku siinaysaa 70% waa sax oo yani xogo fara badan ay jawaab ka siinaysaa waa sax, laakiin waxaa jiraya jawaabo khaldan oo aaladan ku siinayso sababtoo ah aaladan weli waxay ku jirtaa horumarintii oo hadda un baa la sameeyey. sidoo kalena waxana waa system oo maaha qof waxa kula xiriiraya. su-aalaha weydiinaysana qaar badan oo kamid ah si fiican uga jawaabi mayso. waxay jawaabahan ka keenaysaana waa xogo lagu kaydiyey. marka waa muhiim jawaabahana in aad hubiso ka hor inta aanad yani aaminin ama aanad cid kale la wadaagin. waxaa intaa dheer aaladan waxaad weydiin kartaa su-aalaha aad rabto oo dhan marka laga yimaado su-aalaha xisaabaadka oo aaladan weli xisaabaadka kuma fiicna. xisaabaadka waxaan uga jeedaa xisaabaadka complexka ama adag, laakiin wixii kale oo dhan waad weydiin doontaa waynaynu isla arki doonaa. marka boggan san kugu soo muuqdo boggan waxa uu kuu sheegaya waa intii aan kuu sheegay aan kuu koobay. marka koobaad halkan waa example sida aad wax uga raadinayso aaladan su-aalaha weydiinayso. halkani waa awoodda ay leedahay aaladani oo ah inay kaydinayso waxyaabaha aad weydiisay oo la arki karayo. midda labaad aaladan way ku saxaysaa oo haddii wax shaki kaaga jiro oo aad weydiiso way kuu sheegaysaa sida saxda ee wuxuu yahay. aaladan midda kale soo raacday waxa weeye ha weydiin waxyaaba su-aalaha aan habboonayn kaaga jawaabi mayso. aaladan markii la sameeyey dad baa waxay weydiiyeen noo samee virus, kadib viruskii koodkii markay u sameysay ayay si khaldan u adeegsadeen. marka aaladan dadka sameeyey waxa laala wixii aan habboonayn ama su-aalaha aan fiicnayn in la weydiinayo jawaabo inay ka bixiso way ka hor tageen. oo haddii su-aal aan habboonayn ama su-aal negative aad weydiiso jawaab yani kaa samayso aaladani.
halkan waxa weeye waa aaladani meelaha ay ku hooseyso oo aan kuu sheegay oo ah inay mararka qaar jawaabahay ku siinaysaa ay khalad noqonayaan. jawaabahay mararka qaar ku siinaysaa inay noqon karaan qaar dhib ka iman karo sida kuwii viruskii aan kuu sheegay oo kale, inkastoo badankooda laga saaray laakiin mararka qaar ay dhici karayso inay jawaab ku siiso yacni negative ah. halkan kale waxa weeye oo muhiimi, aaladani waxay ku kooban tahay 2021 wixii ka horreeyay. aaladani waa offline maaha system online ah, marka jawaabaha iyo xogta ay isticmaalaysaa waa xog offline oo hore loo geliyay aaladan. marka 2021 wixii ka dambeeyay aaladani xogaha haddaad wax ka weydiiso dhacdooyinkii dhacay ama wax la xiriira ku jawaabi mayso. marka taasina waa muhiim. aaladani 2021 iyo wixii ka horreeyay ku koobantay, 2021 wixii ka dambeeyay sida 2022 iyo 2023 hadda bilowba jawaab ka siimayso. marka inaas waa muhiim. haddaba aaladan si aad su'aal weydiiso, su'aasha aad rabto inaad weydiiso halkan aad ku qori, kadibna way kaaga jawaabaysaa. haddaba waxaan inoo soo diyaariyay waqtiga inoogu koobo su'aalaha ugu fiican ee ay tahay inaynu weydiino iyo sidoo kale qaababka kala duwan aad su'aalaha weydiin karto iyo aaladana kaaga jawaabayso. marka halkan ayaad su'aasha ku qori, kadibna halkaas ayaad ku dhufan si aad su'aasha u weydiiso. haddaba anu waqtiga inoogu koobay su'aalahan waan soo wada koobi gareeyay si aan markiiba halkii aan qori lahaa aan qoraalkii meesha ugu baasti gareeyo ama ugu koobi gareeyo hadba kaad u garanayso si ay nooga jawaabto. marka su'aasha koobaad ayaan doonayaa inaan halkan geliyo. su'aasha koobaad waxa weeye aaladda ChatGPT miyay fahmaysaa luqadda Soomaaliga? aaladdan faa'iidooyinkeeda waxa kamid ah waxay fahmi karaysaa luqadda Soomaaliga. uma baahnid inaad luqado kale aad wax ku weydiiso. inkastoo luqadda Soomaaliga aan ahayn luqadda ugu fiican aad wax ku weydiin karto oo Englishku ka fiicantay oo su'aalo badan oo Soomaali aan jawaab fiican ka siinaynin, haddana at least haddaan English garanayo Soomaali waxaad ku weydiin kartaa. marka waxaan ku qoray ChatGPT miyay fahmaysaa luqadda af Soomaaliga. marka calaamadan aan ku dhufanayaa bal aynu eegno jawaabta inay siiso. haddii aad halkan u fiirsato marka jawaabtii waa inoo dhamaystirtay. maxay ku qortay meeshii saad arkayso ChatGPT miyay fahmaysaa luqadda af Soomaaliga ayaan ku qoray, iyada ayaa ii jawaabtay waatan. waxay tiri waan ku faraxsanahay inaan ku caawino fahamka luqadda af Soomaaliga, waxaan ku hadlaynaa luqadda Ingiriisiga balse waxaan ku dadaali doonaa luqadda Soomaaliga sidii aad u fahantid inaan u fahano. marka halkan waxay ku tiri halkan waxaan kugu soo diri doonaa xogta u dhigma fahamka luqadda af Soomaaliga. luqadda Soomaaliga waa luqad u dhaxaysa Afrika, gaar ahaan bariga dhexe ee Afrika. luqadda Soomaaliga wuxuu ku saleysan yahay 4 qabiil oo kala ah Dir, Daarood, Hawiye iyo Isaaq. marka saynu arkayno uma baahnayn inaan akhrino laakiin luqadda way fahmaysaa. marka hadda jawaabtan ay siisay waa mid haddii jawaabta ay ku siiso aad fahmi ku qanci weydo stable jawaab kale ku siiso, halkan ayaad ku dhufanaysaa ku taalo generate response. waxa weeye generate response bal jawaab kale si aan midaan ahayn. jawaab kale siisay maxay ku tiri haa waan fahmayaa, waxaan fahmaynaa luqadda af Soomaaliga, waxaan kaa caawin doonaa haddii aad rabto inaad codsatid su'aalo ama talooyin luqadda af Soomaaliga ku saabsan. oo inaga aragna af Soomaali waxaad ku weydiin kartaa. haddaba su'aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo halkan aan ku qorayaa waxa muhiim ah aaladan wada hadal caadi ah dhex mari kara. su'aal baad weydiin kartaa, jawaab ay ka siin kartaa, haddana su'aal la xiriira jawaabtii hore aad weydiin kartaa. marka ma aha mar walba inaad su'aal qorto laakiin wada hadal ah ku saabsan hal mowduuc ayaad weydiin kartaa. xitaa waxaad ku oran kartaa jawaabta aad siisay kuma qancin, kadib waxay ku oranaysaa raalahow, kadibna jawaab kale ayaa laga yaabaa inay ku siiso ama baad arki doontaa wax ay ka siiso. marka muuqaalkan waa tagaadhoon mar raba inaan wax walba qoro laakiin waxaan rabaa wax walba inaan kula wadaago uun. su'aasha labaad waxa weeye inay wax kuu sharaxdo aan raba inaan weydiiyo. marka waxaan rabaa inaan weydiiyo bal digital marketing waxa uu yahay. marka waxa lagu talagalay wixii aanad garanaynin inay aaladan kuu sheegto. marka waxaan ku qoray explain to me what is a digital marketing. marketing waxa uu yahay bal ii sharax. waatan hadda jawaabta ay siisay maxay ku tiri digital marketing refers to the practice of promoting products, services or brands. marka wadiga arka digital marketing ina jawaab dhameystiran ayay iga siisay. haddaba aaladan ChatGPT jawaabaha ugu saxan waxay ku siinaysaa haddii aad luqadda Englishka wax ku weydiiso sidaan hore kugu tilmaamay. marka digital marketing waxa uu yahay sidaad aragto inuu yahay internetka marka lagu market garanayo social media dhammaan wax la wuxuu yahay halkan inoogu sheegtay. marka haddii aad jawaabta ay ku siiso istaahid jawaab kale raadi mar walba waxaad ku dhufan regenerate. balse waxaan qabaa badanka su'aalaha aad weydiinayso ee aad English ku weydiinayso inay si saxan kaaga jawaabayso oo aanad u baahnayn batanka, laakiin at least waad samayn kartaa, waad u isticmaali kartaa saan hore kugu tilmaamay. marka wax alaale wixii sharaxaada ee aad rabteen lagu sharaxo ee aanad garanaynin ama wax cusub aad rabteen inaad ogaato aaladan waad weydiin kartaa.
marka waxaan u gudbi doonaa bal su'aasha saddexaad ee rabnay inaan weydiino su'aasha saddexaad waxa weeye waa inaad si direct ah waxa uu yahay aad u weydiiso marka waxaan weydiiyay hadda su'aalaha sida saxda ah ee internetka waxaan ku uri what is the best website-ka ugu fiican ee internetka ee lacag laga sameyn karo muxuu yahay bal marka aynu eegno website-yada ayna siiso marka saarto hadda weyno jawaabaysa oo jawaabtii ayaynu sugaynaa marka waxaan eegi doonaa bal website haddii ayna tiraahdo website-ka ugu fiican ee dhaqaale laga sameyn karo waynu eegi doonaa marka haddii xitaa jawaab hal website aan ku saabsanayn ku siiso waxaad sameyn kartaa inaad haddana su'aasha marka la weydiiso marka waxay ku leedahay error bay soo saartay waa xagga internetkayga anaga internetka computerka marka internetka ay cilado ahayd bogi waan refresh gareeyay marka su'aashii ayaan mar kale weydiinaynaa waxaan odhanaynaa muxuu yahay website-ka ugu fiican ee internetka ee dhaqaale laga sameyn karo bal marka aynu eegno saad aragto waxay noo soo qortay qoraal ah waxaan anigu hayahay language model marka waxay ku leedahay melihi aragti ah yani website-ka ugu fiican ee dhaqaale laga sameyn karo balse waxaan kula wadaagi doonaa qaabab kala duwan oo internetka dhaqaale looga sameyn karo marka waxay ku leedahay qaabka ugu fiican internetka dhaqaale uga sameyn kartaa waxay ku xidhan tahay dad halkan eegto skillskaaga sida interestigaaga iyo waxyaabo la mid ah marka halka waxay noo soo saartay website uu kamid yahay Upwork, Fiverr, Amazon iyo oo kamid ah website dhaqaalaha laga sameyn karo marka waa freelancer oo kala hadii aad tahay website-yada aad yani xirfadaada ku iibin karto marka haddaan regenerate response niraano balse aynu eegno inay markan website gaar ah inoo xusho ama wax kale inoo eegto aynu eegno halka marka hore inooga sheegayso website-yada fiican markan waxay noo sheegtay qaabab kala duwan oo internetka dhaqaale looga sameyn karo marka waxay nagu tiri waa freelancer mid kamid waxa weeye waa online service inaad shaqooyin online ku qabato mid waa inaad online wax ku bixiso ama wax ku dhigto oo online tutorial waa inaad alaabooyin ama products ku iibiso online affiliate marketing iyo waxyaabo la xiriira marka wax alaale waxaad rabto saarto su'aasha weyn uga jawaabtay mar rabo muuqaalku inuu dheeraado oo jawaabahan aan akhriyo muhiim aha balse haddii aad eegto jawaabahan waxay inoo sheegaysaa wax weeye inaad siyaabo kala duwan dhaqaale uga sameyn karto bal marka su'aasha inoo xigta aan weydiiyo saynu aragnay yadana waxay tahay marka hadda waxaan soo aragnay inay wax ku sharxi karto waxaan soo aragnay inaad su'aal toosa aad weydiin karayso aaladan bal markan waxaan u gudbi doonaa inaan weydiino saddexda xirfadood ee aad hadda ay yani ugu fiican aynu hadda baran karno macnaha saddexda xirfadood ee waqtigan aynu hadda joogno inaad barato ay aad ka u fiican tahay marka waxay noo sheegaysaa data analysis saynu aragno digital marketing programming saddexda xirfadood ayay nooga dhigtay saddexda ugu fiican hadda inaad baran karto waa data analysis digital marketing iyo programming data analysis waa la fagurka datada digital marketing waa la garanayaa programming waa coding ama in wax la dhiso oo wax la develop gareeyo bal marka aynu hadana in hore ugu soconayno aragno su'aalahayna weydiinayso marka su'aalaha waan soo aragnay mid weyna si toos wax u weydiiso su'aasha xigtaan doon waxa weeye in ay ku siiso steps waxaanu naqaanaa YouTube marka timaado inaad muuqaal daawato si aad u raacdo steps ku siinaya yani si aad wax u samayso haddaba aaladan waa ay ku siinaysaa hadda waxaan doonayaa inaan idhaahdo sawir baan doonayaa banner inaan YouTube channel u sameeyo ii sheeg talaabooyinka raacayo anoo adeegsanayo software-ka Photoshop bal marka aynu eegno in ayna siiso talaabooyin waxaan isticmaalnaa software-ka Photoshop waxaan doonayaa inaan ku dhisno sawir banner bal aynu eegno hadda kor baan su'aalahan wada eegay oo tijaabiyay jawaabaha ayna siinayso waxay ina siinaysaa jawaab dhammaystiran oo bilow ilaa dhamaad sidii aad design banner ama sawir banner ugu samayn lahayd Photoshop waxay ku odhanaysaa software Photoshop software samayso documenti waxaad ka dhigtaa cabirkiisa 200 iyo 2560 iyo 140 iyo 1440 pixel marka waa cabirka jooga horizontalka iyo verticalka ama height iyo widthka ee ah yani uu leeyahay bannerka YouTube-ku waxay ku odhanaysaa background dooro sidaynu halkan ku aragno qaybtan hoose waxay ku odhanaysaa sawirada aad rabto soo gali bannerka halkan hoose waxay nagu sheegaysaa textiga aynu isticmaalayno marka halkan hoose hadda eegno waxayna leedahay effectska isticmaal aad rabto marka halkan waxay ku leedahay markii aad yani ku qanacdo design-ka aad isticmaalayso dooro PNG JPG ka yahay sad YouTube geliso marka haddii aad u fiirsato waa design dhammaystiran waxay inoo sheegaysaa oo ah bilow ilaa dhamaad sida aad u sameynayso design dhammaystiran oo ah yani Photoshop ama YouTube banner marka YouTube banner waxa la yiraahdaa sawirka qaybta sare ee YouTube kala saaro marka haddii aad akhrido bilow ilaa dhamaad way ku siinaysaa marka halkan hoose waxay ku leedahay qoraal yani summary ah oo stepskan ay ku soo sheegtay ah marka toos talaabooyinka waad u raaci kartaa waana ku sameyn kartaa design-ka aad rabto
bal marka haddana inuu gudubno waxaanu soo aragnay haddana inaad weydiin karto su'aalaha si tallaabo haddii aad rabto inaad wax u samayso inay kuga caawinayso. hadda waxaan doonayaa marka inaan isla aragno bal waxaan doonayaa su'aasha inaan weydiiyo ii qor please write me a cover letter for CV. waraaq cover letter ah oo aan yani application ama waraaq aan shaqo ku codsanayo oo CV ah inay ii samayso. bal marka haddana aynu weydiino su'aashan in ay inoo samayso waraaqda cover letterka ee CV-ga. saad aragto waxay inoo samaynaysaa waraaq dhammaystiran oo loogu talagalay cover letter oo loogu talagalay CV. waxayna leedahay saad aragto I am writing to express my interest, position name, company name. waxaan hadda doonayaa inaan cabiro xiisahayga inaan positionka ka shaqeeyo company-ga la yiraahdo magaciisa, nooca shaqada noocaas aan qabto, anoo khibradda intaas oo sanaa leh. marka waa waraaq dhammaystiran oo intaad koobi gebigeedaba halkan ka koobi karaysato aad la tegi karto software aad rabto inaad ku samaysato mesela Word oo kale aad ku samaysanayso cover letter ama CV-ga. qoraalkan waad ku qori meelaha loogu talagalay position-ka aad u tartamayso, company-ga aad u tartamayso iyo khibradaadana waxay kuugu xidhiidhay saad aragto bracket-ka. marka position name oo position-ka u tartamayso, company name oo company-ga aad u shaqo tagayso aad rabto inaad shaqadiisa codsato, qaybaha hoosena waa la mid ah. marka wadiga arka waxay ku samaystay waraaq dhammaystiran oo ah document. haddaba mid baa muhiim ah, haddii document tirahay ii samee documentigaasi tusaale kale haddii ay tahay article aan website ku soo qoro ama Facebook page ku soo qoro ii samee. inta badan qoraalada ay aaladda artificial intelligence ay samayso waa la garanaya. marka haddii aad istaahid halkan article ku qoro kadibna la aad website-kaaga blogga kuma shaqaynayso. markaba waa uu garanaya haddii aad Google AdSense isticmaalayso in aad qoraalkan AI ku soo samaysay ama artificial intelligence ku soo samaysay. marka waxa muhiim ah in article-ada ama qoraalada isticmaalayso meelaha qaar aad u isticmaasho laakiin aanad u isticmaalin sida inaad blog website-kaaga ku soo qorto oo kale. sababta markiiba Google waa uu fahmaya in waxaan aad AI ku soo samaysay, isla markaana wax laga yaabaa in akoonkaaga AdSense-ga laga xidho amaba sidoo kale in laga joojiyo dhaqaalaha lagu saarayo. marka taasi waa muhiim, waa inaad qoraalada aaladahan ku sameeyaan aanad si toos ah u soo dhigin website-kaaga blogga iyo page-ka iyo meelaha la midka ah. haddaba su-aasha xigta ayaynu weydiinaynaa waxa weeye saad aragto ii qor waraaq cabasho oo aan u dirayo shaqada haddii aan doonayo inaan fasax qaato oo kale. marka iyaduna waa la mid, way kuu qoraysaa sida tan. su-aasha xigta doonaya waxa weeye inaan markaa weydiiyo waxa weeye waa programming-ka. su-aashan doonaya waxa weeye markaa in aan ku idhaahdo ii qor code programming oo fariin email diraya oo igu qor luqadda Python. bal markaa aynu iyadana inay noo qorto su-aashan yani luqadda Python ta aynu rabnay inaan weydiino. saad aragto marka waa inoo dhamaystirtay, waxay nagu tiri waatan waan kuu qoraya sure. waxa weeye halkan waa example function kuu diraya fariin email oo luqadda Python ku qoran. marka waxa kula waxaan isticmaalay module-yada email iyo SMTP lib ama SMTP library. marka waa kuwa halkan module-yadii waxay noo yaala waa kan function-kiina. haddii aad rabto marka inaad code aad samaynayso function-kan isticmaasho waxay halkan kugu qortay function-ka oo dhammaystiran oo copy and paste baad ku samayn kartaa. sidoo kale xitaa intaa kuma aysan koobnaan, qaybta hoose waxa ay kuu dhigtay haddii aad u fiirsato waxay kuu dhigtay sharaxaad, macnaha function-kan ay kuu qortay oo lagu sharaxayo. halkan hoosena waatan kuu sheegtay ku tiri to use this function you can call markaad u baahan tahay function-kan waad wici kartaa markaad isticmaalayso subject-kii, message-kii, from address-kii to address-kii iyo password-kii. marka waa function aad code dhex gelinayso oo fariin email diraya. marka taasina waa mid. marka wixii programming ah oo dhan su'aal wada weydiin kartaa, waad oran kartaa code-kan miyuu sax yahay ma khalad ba iyo waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka weydiiso oo dhan ee programming-ka. waxaan weydiinaynaa marka su'aasheena inoo xigta. waxaan weydiinaa hadda inay fariin email ay noo dirto. waxaan doonaynaa marka inaynu marka aanu weydiino su'aalaha nooca aan ahayn kuwa aqoonaysan. tusaale oo kale haddii aaladdan waxaad su'aal u weydiin kartaa qaab aan ahayn qaab aqoon ah. tusaale kale waxaad doonaysaa shay aanad garanaynin technically waxa uu yahay inaad weydiiso. tusaale kale website-yada markaynu booqanayno qaybtan sare ee website-ka waxay noo yaala qoraal la yiraahdo HTTPS. qoraalkan waa protocol kaasoo ay isticmaalaan browseradu marka ay dirayaan codsiyada. haddaba haddii aanad garanayn protocol-kani balse aad rabto waxa uu yahay inaad weydiiso, waxaynu ku weydiin karnaa aaladdan qoraal caadi ah inagoo aan protocol iyo qaab aqoon ahaan aanu u weydiinin. marka halkan waxay noo taalla su'aal haddii aad eegtaan. su-aashan waxa weeye waa maxay qoraalka HTTP-ga ah ee ka horeeya qaybta browserada address-ka website-ku ka soo muuqdo.
ciwaanka website-ka halkan uu ka muuqdaa marka su-aashan macnaheedu waxa weeye uun waa muxuu yahay qoraalka http-ga ah ee addresska website-ka ka horeeya halkan odhan lahaa http waa maxay ama https bal waxaan weydiiyey qaab aan ahayn qaabkii saxda ahaa bal markaaynu eegno jawaabta ayayna siiso waxayna siin doontaa jawaab saxa uma baahna markaa aaladani markaad su-aalaha weydiinayso inaad u weydiiso sidii qof technically wixii garanaya waxa uu yahay balse ama wixii sida loo weydiinayo garanaya balse raba inuu waxaan yani xog kasii ogaado waxaad u weydiin kartaa su-aalaha aaladan sidii qof aan aqoonba u lahayn waxyaabaha uu aaladan wax ka weydiinayo marka haddii aan halkan eegno waxayna artay inay noogu jawaabtay qoraalka ka muuqanaya qaybta hore ee addresska website-ka ee browserka waxaa la yidhahdaa waa protocol identifier ama scheme waata halkan noo sheegtay tiri it specifies the protocol that the browser should use to access the website waxay sheegtaa protocolka website browserku adeegsanayo si uu website-ka u booqday waata halkayna leh the most common protocolka la isticmaalay ugu caansan ee protocolada ka midi waa http waana tahay noo sheegtay tiri waxaa loo soo gaabiyey hypertext transfer protocolkan waxa uu yahayna way noo sii sharaxaysaa ilaa ay halkan dambe kaga hadlayso xitaa qaar kale oo protocolada ay soo qaadanayso marka aaladan waxaad wax u weydiin kartaa sidoo kale qaab aan ahayn qaab technically wixii inaad garanayso ama qaab aan aqoonaysayn qaab aan aqoon yani qaab aqoon wada aqoon oo kale aad u marayso aan ahayn ama qaab aqoonaysan aan ahayn waxaad u weydiin kartaa wixii sida caadiga ee su-aalaha loo weydiiyo luuqadaha kadibna way kaaga jawaabaysaa halkii aad protocolkaas waa maxay ama wax muu qabtaa amaba qaab yani su-aal aad fahmayso technically waxay tahay aad u weydiin lahayd marka adiga arka waa ay kaaga jawaabtay waxaan rajaynayaa saaxiibayaal inay la wadaagay qaababkii kala duwanaa ee su-aalaha weydiin karaysay aaladda ChatGPT iyo sidoo kale wixii kale ee warbixin ee muhiim ah ee aaladda ku saabsanaa waxaanu joognaana saaxiibayaal gadaashii ama gabagabadii muuqaalka waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkeenan aad ka faa'iiday haddaba haddii aad saaxiib muuqaalkeena ka faa'iiday waan rajaynayo muuqaalkeena like saab si YouTube muuqaalkeena dad badan oo tusiyo oo uga faa'iidaysta haddii aad muuqaalkeena waxba ka faa'iidayna muuqaalkeena dislike gareen inkastoo aanan rajaynaynin haddii aad ugu cusub tahay una aragto mustaqbalkeena waxayna faa'iidaysana ka nabo saaxiibada qiimaha badan ee channelkeena ku xidhan sidoo kale haddii muuqaalka wax ka faa'iiday la wadaag asxaabtaada inta muuqaalkan ka xigaan ku kulmi doono aniga iyo idinka saaxiibayaal waxaan rajaynayaa khayr والسلام عليكم.